ururka horumarinta Race Social Service ayaa bulshada magaalada Baran u soo jeediyay in isku tashi lagu dhiso maktabadda dadweynaha ee degmada Baran. Gudoomiyaha ururka Race Social Service Yaasiin Muuse ayaa ka warbixiyay muhiimadda dadweynaha magaalada Baran ay u leedahay in la dhiso maktabad dadweyne oo ay ka wada faa'iideysan karaan dhammaan bahda waxbarashada iyo bulshada magaaladuba. Sidoo kale samafale Cabdifataax Maxamuud Maxamed ayaa isaguna ka hadlay yeegleelidda maktabadda dadweynaha degmada Baran fariin u diray qurba joogta iyo bulshada ku nool mandaqada. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Barnaamijkani waxa uu daaran yahay in la dhiso maktabadda dadweynaha degmada Baran. Sida aad la socotaanba magaalada Baran iyo mandaqadeenu ma laha maktabad dadweyne. Magaalada Baran waxa ku yaala in ka badan 5 iskuul oo isugu jira iskuulaha hoose dhexe iyo sare. sanad kastana waxa ka qalin jabiya kumanaan arday ayaa ka qalin jabisa. Ardaydaas caqabadaha ugu weyn ee haysata waa maktabad la'aan. Tusaale haddaan siiyo bacdal maghribka waxa arkaysaa dhalinyaro badan oo masaajidada xagga dambe buugaag ku fooraro oo wax akhrisanaya. Dhalinyaradaasi waxay xaq u leeyihiin inay helaan maktabad ay wax ku akhristaan oo qalabaysan. Maktabaduhu waxa ay qayb weyn ka qaataan tayada tacliinta iyo kobcinta aqoonta bulshada. Maktabaduhu waa meesha laga daalacdo aqoonta oo sidoo kalena laga helo buugaagta cusub markaa soo baxda. Waxaa jira 5 qaybood oo ay maktabaduhu muhiim yihiin. Lambar 1, maktabaduhu waa meesha ugu horeysa ee ay bulshadu xogta ka qaadato. Maaha meesha xogta bulshadu ka qaadanaysa maaha YouTube iyo social media ee waa maktabadaha. Maktabadaha waxa laga helaa aqoonta, tiknoolajiyadda iyo culuumta maadiga ah waa meesha laga helo aqoonta saxda ah. Maktabaduhu waxa ay bixiyaan waxbarasho lacag la'aan ah sida tababarada aasaasiga ah ee kombiyuutarka, samaynta CV-yada iyo shaqooyinka markaasi aasaasiga ah ee ay bulshadu u baahan tahay. Sidoo kale maktabaduhu waxay ka qayb qaataan samaynta cilmi baarisyada, tiknoolajiyadda iyo sayniska. Lambar 3, maktabaduhu waa meesha lagu kaydiyo taariikhda juqraafiga khayraadka wadan leeyahay iyo dhaqamada ummadu ay leeyihiin oo kaleeto. taasoo fursad weyn u noqon doonta ubadka soo kacaya inay helaan meel ay ka daalacan karaan taariikhdooda iyo dhaqankooda iyo khayraadka iyo waxyaabaha wadankeena uu goonida leeyahay. Lambar 4, maktabaduhu waxay leeyihiin computer lab iyo printer lacag la'aan ah. Sida aan ka ogaaday dhalinyarada iskuulada dhigata waxa weeye caqabada ugu weyn haysata waxa weeye printer la'aan oo markaas dhalinyaradu ma helaan meel ay ka printer gareystaan imtixaanaadka iyo homeworkyada iyo aqoonta ay u baahan yihiin. Markaas maktabadu waxay fursad u siin doontaa dhalinyarada iskuulada ku jira inay helaan meel ay si lacag la'aan ay uga printer gareystaan warqadaha iyo scanning-ka ay wax ka scan gareystaan. Lambar 5, maktabaduhu maaha oo kaliya meel information-ka laga helo ee maktabaduhu waa meel bulshada lagu dhiso. Waa goob ay ku kulmaan aqoon-yahanka bulshada, naadiyada isboortiga, ururada haweenka iyo dhalinyarada. Maktabaduhu munaasabado badan ayay qabtaan oo markaa bulshada lagu horumarinayo. Maktabaduhu waxay kor u qaadaan sidoo kale dhaqaalaha bulshada, waana meesha laga heli karo xogta ku saabsan shaqo abuurka, ganacsiga, suuq-geynta. Waxa ayna fursad u yihiin ganacsatada yaryar inay isku xirmaan oo markaa ay bulshada la falgalaan. Walaalayaal, maktabaddan waxaa lagu dhisi doonaa isku tashi bulsho, waana u furan tahay qof kasta dal iyo dibadba inuu ka qayb qaato. wax lagu bixiyana waxa ugu muhiimsan waa tacliinta weeye wax lagu bixiyo taas ugu muhiimsan. oo ah injineer Cabditax Kuure una dhaqaaqa runtii arrimaha samafalka waxaan aad iyo aad u taageeraynaa in la sameeyo library ay yeelato magaalada Baran. Library-ga runtii waxa waday Yaasiin Muuse Ali Faatax oo dalka dibadiisa ka yimi. Barnaamijkaasna runtii aad bay dadku ugu baahnaayeen. Mandaqada Baran runtii aad bay ugu baahnayd in la helo library public ah oo ummaddu leedahay oo ummaddu ay u siman tahay. Marka waxaan u sheegayaa walaalaha muxsiniinta ah dal iyo dibad jooga in ay barnaamijka khayriga ah insha Allah taala ay ka qayb qaataan. Library-gana qof walba uu anfacaya dad badan baa runtii ka faa'iideysan lahaa oo maaragtay wax ku akhrisan lahaa
xilliga ay firaaqada yihiin magaaladuna aad bay baahidaas moogtahay ay u jirtaa oo de markii hore ma jirin cid wax ka qabata hase yeeshee alxamdulillah fikradda Yaasiin baa keenay engineer Yaasiin marka aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay aqoonyahan Yaasiin inuu fikradda keenay anaguna 100% waa ku taageersanahay waan la qabanaynaa insha Allah taala jaaliyada dibadda iyo dalkana waxaan ka codsanayaa in ay barnaamijka runtii taageeraan